asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha ku xidhan janalkeenna qubtaan kusoo dhowaada muuqaal cusub. Muuqaalkeenna maanta waxa uu ku saabsan yahay dad isku eeg oo ka dhexayso qaraabanimo. Daawasho wacan muuqaalka oo dhammaystiran. Si aad u fahantiin muuqaalkana waxaan kugula talinayaa inaad daawatid muuqaalka oo dhammaystiran. Weli may kugu dhacday in adiga oo waddo maraya aad aragtid shaqsi aad garanaysid shaqsi u eg. Markii aad u soo dhowaatayna aad bilowday in aad salaantid uuba noqday shaqsi kale aanad ku tiri igaraa lahow walaal waxaan kugu qaldayay shaqsi kale. Haa runtii qof kasta oo inaga mida way soo martay. Haa runtii way soo martay qof walba oo inaga mida. Qaar ka mid a culummada hiddaha iyo ka warrama arrimahaas waxay sheegayaan inuu qof walba leeyahay 7 shaqsi oo la mid ah. Ka waran ama maxay aad samayn lahayd haddaad aragtid adiga oo waddada maraya, aad aragtid haddana adiga oo kaa horeeya oo aad isla adigii un ah oo waddada maraya. Maxaa aad samayn lahayd? Kolley waxaad dhihi lahayd waan riyoonayaa ama waa khayaali. Laakiin haddaan ku dhaho khayaali maaha oo dadka aan waddada ama qisadan maanta aan kaga warrami doono waa dad sidaas si lamid ah ku kulmay. Daawasho wacan. Saddexdan wiil aad arkaysiin waa 3 wiil oo kala lumay maalintii ay dhasheen, iyadoo meeshii ay ku dhasheen ama daartii lagu rabaayadaynayay ciyaalkana lagu daryeelayay ay kala siisay 3 qoys oo adhabti garaystay. Waxa ayna kulmeen markii laga soo wareegay muddo dhan 19 sano. Waxaana la sheegaa dhakhtaradu inay ka wateen arrinkaas tijaabo, iyadoo la tijaabinayay 3dan mataano sida ay noqon doonaan iyagoo weliba ku kala koray bii'o kala duwan, iyo weliba dhul kala duwan, iyo weliba dad kala duwan. Waa 3 walaalo oo mataano ah waxa ayna ku dhasheen magaalada New York taariikhdu markay ahayd 1961 miilaadiga. Magacaantoodu waxa ay kala yihiin ka koowaad oo ah David Kellman iyo Robert Shafran, iyo weliba ka saddexaad oo ah Edie Galan. Maalinta ay jireen saddexdooduba 19 sano, midna muuna ka warqabin midka kale in uu leeyahay walaal. Waxayna ahayd tajribo ama tijaabo laga qaadayay walaalahan sida ay noqon doonto xaaladoodu marka haddii ay kulmaan muddo badan kadib. Sidaa waxay noloshu u socotaba maalin maalmaha ka mid ah Robert Shafran ayaa waxa uuna ka soo qayb gelin maalintiisii koowaad ee uu galayay bilaabayeyna jaamacadda, isagoo ka cabsanayay walwal badanna ka qabay markii uu arkay wiil ka mid ah ardayda jaamacadda dhiganaya oo ay isku eeg yihiin xitaa labiskooga ayna ku kala duwanayn waxba. Wiilkaasna waxaa lagu magacaabayay Edie Galan. Wuxuu Robert saa ku wadaba oo uu ka cabsaday in uu jaamacadda imaado toddobaadyada badanna ku khasaariyo guriga in uu joogo maadaama uu cabsi badan ka qabo inay isweydiiyaan dadku, ayaa waxa uu go'aansaday markii u dambeysay in uu la hadlo Edie Galan ka waraystana waxa jira. Haddaba sirta qisadu iyo waxa ka dambeeya maxaa ay tahay. Maalintii ay kulmeen walaaluhu, waxa uu yidhi Robert waxaan eegayay indhaha Edie, waxayna ahaayeen indhahayga indha la mid ah, xitaa waxaan iskaga eekayn wax walba. Runtii waxay ahayd arrin la yaab leh. Laakiin meesha waxaa ka maqnaa walaalkoogii saddexaad, kaasoo ahaa arrinkan kii xallin lahaa. David Coleman oo ahaa walaalkoodii saddexaad waxa uu ogaaday ugu dambeyntii markii jaraa'idada ugu waaweyn dalkaas Mareykanka ee Newsday lagu soo daabacay safxadda hore dhacdadan la yaab kale. Waxa aanu gacanta u gashay walaalkoodii David. Ugu dambeyntiina marka uu David akhriyay qisada waxa uu sheegay in ay tahay qisadii ugu la yaabka badneed uguna mucjisada badnayd ee uu arkay intuu noolaa. Markuu sawiraantooda arkayna waxa uu yaqiinsaday in ay yihiin walaalo, maadaama labadan shaqsi ee kale ay yihiin 2 shaqsi oo isku dhasheen isku taariikh, isku meel, iyo weliba isku magaalo. Waxa uuna go'aansaday in uu sida dhaqsiyaha badan ula xidhiidho. Markii ay kulmeenna waxay ahaayeen kuwa u dhaqmaya sida ciyaalka. July 12, 1961, and it was Louise Wise Adoption Agency. This is not believable. This is unbelievable. Wow. This is big. This is serious. This is just not some kind of crazy coincidence. Waxayna dib u soo nooleeyeen walaaltinimadii iyo kalgacaylkii ayna wada qaadan intay yaraayeen. Waxayna isku ahaayeen muraayad, iyagoona midka kale ula danqanayay, kan xarakada ama farta u dhaqaajiyana kan kalena uu dhaqaajinayay. Runtii waxay ahayd wax mucjiso leh. Waqtigaasna waxay noqdeen kuwa aad u popular ah ama caan ah, iyagoona ka soo muuqday barnaamijyadii ugu waaweynaa waqtigaas, waxayna mataleen filimka Madonna. Haddaba maxa ay tahay xaqiiqada qadhaadh ee ka dambaysa tijaabada lagu sameeyey 3dan ciyaal ee mataanaha ah ee ayna jirin wax alla wax ay galabsadeen, adduunkana markaasun indhaha u soo kala qaaday, cimrigoogiina
19 sano lagu lumiyey meelo ka duwan meeshii ay ku qaybsan lahaayeen. Waxaa xaqiiqooyin badan iyo xogo badan ay sheegayaan in meeshii ama daartii ciyaalka lagu raacaynayay ee lagu xanaaneynayay lagu magacaabo Louis Wise Services ay ahayd ta ka dambeysay in ay fusho arrinkaas, ciyaalkana sabab u ahayd in la kala kaxeeyo muddo dhan 19 sano, sababtuna ay ahayd wax ay ka damacsanaayeen ama tijaabo ay iyagu u gaar ahaayeen oo rabeen inay ku sameeyaan ciyaalkaas. Haddaba maxa ay tahay tijaabadan ay ku rabeen inay ku sameeyaan ciyaalkan yaryar? Arrinka saas uu ku dhacayna waxaa ka dambeeyey hay'ad Yahuuda oo qaban jirtay howlaha bulshada ama social serviceska loo yaqaano, waxayna ku qanciyeen faamilkii uu ka dhashay 3dan ciyaal in ay tahay maslaxadooda in la kala kaxeeyo lana kala siiyo 3 qoys. Sababtuna waxay tahay ma jiro qof aqbalaya 3 ciyaal that not every parent would welcome triplets, and the triplets would be difficult to place, which I think that moment my ama father 3 blew mataano his isla stack. socda hal عرفت meel, taasina العائلات waa ta ka dhigtay aabahood mid xanaaqsan. Laakiin anigaygan hadda waxaanan fahansanayn sidee aabahood iyo hooyadood oo nool ciyaalka loo adapt garaystay ilaa imika ma fahmayo. Kolley waa howlo gaaleede aan ka soconno. Haddaba xaggan ayuu ka soo baxayaan in lagu magacaabo Peter Nopira, ninkan lagu magacaabo waxaana mudiir ka ahaa ama uu xafiiska ugu sarreeyay haystay meesha ciyaalka lagu xanaaneynayo sanadadaas, isagoona damacsanaa in uu ogaado 3dan mataanaha haddii la kala geeyo meel dhaqaalahoogu, hawadoodu iyo weliba noloshooduba kala duwan tahay, sida uu xaalkoogu noqon doono una saameyn doonto noloshooda iyo dabeecadahooga iyo welibana aragtiyadooda dhammaan ay ka haystaan dunida. Waxauna sheegay inuu taa u sameeyey tijaabo keliya. 3dan mataanana markay ogaadeen arrinkaas waxa ay ku tilmaameen ninkaas nin waxshi ah oo qaasi oo aad u xun kana mid ah naasiyiintii xunxumayd ee dhiig yacabka ahayd. Peter iyo qole la shaqayn jirtay waxa uu Robert sheegay in waagii ay yaraayeen ay ugu mumin jireen xaafadda kana qaadi jireen tijaabooyin done, square pegs and round holes, Rorschach ink blot tests. What does this mean to you? That kind of stuff. iyagoo ku sameynayay tijaabo ay ku qiyaasayaan IQ-googa kana qaadayaan imtixaano dhowr ah, sida inuu shakhsigu sawiro iyo su'aalo fara badan oo aad u fara badan oo aynan u dulqaadan karin runtii. Haddana Edie oo ahaa walaalkii ka dambeeyey in ay kulmaan 3dan walaalo ayaa waxa uu isdilay taariikhda markay ahayd 1995. Haddaba sidee noqotay shakhsiyadaha ama waxay ka damacsanaayeen tijaabadan iyo inay qiimeeyaan say noqon doonto shakhsiyadoodu? Haddaan kuu sheego shakhsiyadoodu sida ay noqotay, Robert waxau noqday kii ugu fikirka badnaa uguna firfircoonaa 3da walaal. Xagga Edie uu ka ahaa midka ugu xasaasiyad badan uguna caatifad badan. Dhinaca kalena Robert wuxuu ahaa qofka ugu maskax fiican, andhaho qofka ugu furfuran uguna qalbi wanaagsan ee naxariis badan. taasayna ahayd sababta ka dambeysay in ay midoobaan walaalahan 3da. Dhanka kalena waxa ay furteen hoteelkoogii u gaarka ahaa iyagoona u bixiyey magaca triplets oo macnaheedu uu noqonayo mataanihii 3da ahaa, taasoona ka dhigtay inay dad badan ay ka soo booqdaan dalxiisnimo guud ahaan caalamka. Maadaama ay ahayd arrintoodu mid aad u faaftay, waxay ka faa'iidaysteen arrinkaas iyagoona ku dhaqaaqay inay furtaan hoteel u gaar ah. Sanadkii koowaadna waxa ay xaqiijiyeen lacag dhan $1 milyan. $1 milyanna waqtigaas waxay ahayd lacag aad iyo aad u fara badan. Robert markii dambe uu ka baxay shurakadii uu la lahaa walaalkii isaga oona ka cadhooday, sheegayna in arrinta uu la shuraakoobay ay ahayd in uu la kulmay ama uu la kulmo hooyadood uuna la kulmay hooyadood. Hooyadoodna waxa uu sheegay inay ahayd mid aad u yar markii ay iyaga uurkooda qaadaysay, waxayna ahayd mid la dhibaataysan mukhaadaraadka iyo weliba khamriga. Ugu dambeyntiina Robert iyo David waxa ay maxkamad saareen shirkadii ama wakaaladii ka dambeysay inay maraan tajribada aadka u foosha xun, walaalana ay kala dheereeyeen muddo dhan 19 sano wax sabab la'aan ah. Ugu dambeyntiina Robert waxa uu dhintay kii ka dambeeyey inay dhacdo ama fusho hawshani 2008 isagoo oona guul ka gaadhin xaqiijinna waxa uu rabay ee uu sameeyey tajribadan. jaamacaddii uu ku fuliyey ama uu kusoo qorsheeyey arrinkaasna lagu magacaabo jaamacadda Yale waxaa la kansalay ilaa 2066 inayna shaqayn doonin. waxaana laga sameeyey filin lagu magacaabo waxaana laga sii daayay filinkaas Netflix 2016 kaasoo ciwaankiisu ahaa
three identical strangers oo macnaheedu yahay saddexdii isku midka ahaa ee kala duwanaa. Wuxuuna filimkaasi ka warramayaa tajribada iyo weliba arrinka lagu fuliyay walaalahaas natiijadoodii. waxaanan u malaynayaa inuu muuqaalkeenu intaa ku egyahay. fadlan haddaan channelka ku cusub tahay subscribe sar videogana like saar. aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. intaan ku kulmi doona muuqaalkan muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegayaa peace